kooxaha garabka midiga ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay wadaan olole ballaaran oo ujeedadiisu tahay sidii loo ridi lahaa xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska Mareykanka asal ahaanna ah gabadh Soomaaliyeed. kooxaha garabka midiga ee Mareykanka ayaa iska horreysiinaya gabadha reer Ciraaq ee muslimadda Daaliya Caqiidi oo qaxooti ku ah dalka Mareykanka taasoo sheegtay inay khaati ka taagan tahay oo ay ku daashay ficilada Ilhaan Cumar oo ka soo baxday gobolka Minnesota. waxaana ay gabadha reer Ciraaq sheegtay in Ilhaan Cumar ay ku ciyaartay kaarka aqoonsiga ee dhalashada dalka Mareykanka isla markaana ay adeegsanaysay luqad ay ku kala qaybinaysay ummadda Mareykanka. kooxaha midigta fog ee taageera madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku yaacay halka lagu sheegay gabadha Ciraaqiyada si ay uga faa'iideystaan ololahooda ku aadan inay ka saaraan golaha Koongareeska gabadhaas Ilhaan Cumar oo iyadu hore ugaga cadhaysisay kooxaha cunsuriyadda iyo ururada taabacsan Yuhuudda. gabadha reer Ciraaq ee Al-Caqiidi waxa ay u sheegtay telefishinka Fox News inay is-abaabuleen mowjado sii kordhaya oo xisbiga jamhuuriga kuwaasoo doonaya inay iyada ka dhigaan tii ay ku waajihi lahaayeen dagaalka ay kula jiraan Ilhaan Cumar. waxaana ay ugu baaqday Ilhaan Cumar inay joojiso muujinteeda ah inay xoog badan tahay oo aan cidina wax ka qaadi karin sida ay hadalkeeda u dhigtay. Al-Caqiidi waxay ku adkaysatay inaanay ahayn in Ilhaan Cumar mar dambe u isticmaasho asalkeeda haweeney muslimada oo qaxooti ku timid dalka Mareykanka si ay isaga socdo dadka Mareykanka intiisa kale. tilmaamaheedaasina ay la mid noqonayaan ama soo shabahayaan kuwa kale ee cunsurinimada sidoo kalena aanay muslimnimadeeda u adeegsan mid ay kaga duwanaanayso dadka kale ee Mareykanka sababtoo ah bay tiri muslimiinta Yuhuudda iyo Masiixiyiintuba waa Mareykan. waxaana ay intaa ku dartay in markasta oo ay Ilhaan Cumar afkeeda kala qaado ay odhanayso kelmado ka soo horjeeda Mareykannimada. gabadha reer Ciraaq ee ay kooxaha midigta fog ee Mareykanku geeyeen telefishinkoodii Fox News ayaa waxay ku eedaysay xildhibaan Ilhaan Cumar inay ku dadaalayso inay muujiso inay kor u qaado muuqaalkeeda siyaasadeed halkii ay uga hadli lahayd oo ay ka caawin lahayd dadkii soo doortay. iyadoo dhankeedana Al-Caqiidi isku tilmaantay inay tahay gabadh u daacada dalka Mareykanka oo isagu siiyey fursad ku noolaanshaha. waana gabadha reer Ciraaq ee Daaliya Caqiidi oo muddo 30 sannadood ka soo shaqeynaysay saxaafadda markeedii ugu dambeysana reporter ahaan uga shaqeynaysay kanaalka telefishinka Mareykanka ee Al Hurra.